وين ربي بوحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحنو ودنا تحنيه أنو قهل الدونو مقعيد إلهي سبحانه وتعالى وأنكهر مريني دور عشر وهردع النقنية أما صلق النقنية مقعيد إلهي مركا أنو قد قلو إذا نشرحنه si aan u fahamno qofka bini aadamka ah ee waxaan la falgali doona noocyada ay kala yihiin iyo siday u fakaraan iyo siday u sameeysan yihiin iyo siday maskaxdooda u maareyn doonto marka ay baranayaan magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. qaybtan waxay ku saabsan tahay aan uga hadlaynaa qofka bini aadamka ah wuxuu u dhaxeeyaa wax la yiraahdo qiyam oo ah anshaxiisa shakhsiga ah iyo wuxuu u dhaxeeyaa rabitaan. labadaasa inta badan qofka bini aadamka ah oo dhexda ugu jira waxna uu rabaa anshax ama qiyamna waa laga rabaa inuu ilaaliyo oo uu ku sugnaado. qiyamkaas waxay maamuli doonaan waxa uu sameyn doono ama waxa uu rabi doono. sida darteed qiyamtu waxay u qaybsantaa ama anshaxu wuxuu u qaybsamaa labo, waa khayr iyo shar oo ah wax wanaagsan iyo wax xun. haddii wuxuu marka ay khayr yihiin waa waxa loo yaqaano inay tahay anshax wanaagsan وقيمهeduna sareeyo wanaageeduna uu sareeyo. hadii wuxuu ay shar yihiinna waxay noqonayaan qiyam ama anshax aan wanaagsanayn oo bini aadanka dhibaato iyo mushkiladaha dhow u keeni doona. sida darteed waxay culimadu ka hadleen maxaa la yiraahdaa akhlaaq sideedaba. anshax maxaa la dhahaa qofkan waxaan waa akhlaaq fiican ama waa akhlaaq xun maxaa waaye halbeeg lagu garanayo. culimadu waxay yiraahdeen akhlaaqdu waxa weeye sideedaba waa waxa wanaagsan waxaad ku garanaysaa waxa naftaadu u janjeerto sameynteedana ay ku degayso hadday rabto aysan sameynin. yacni markaad aragto deeqsinimo waa rabtaa, markaad aragto run qalbigaagu waa ku degayaa, jirkaaguna waa u janjeerayaa, laakiin waa laga yaabaa inaadan adiga sameynin. maxaa la dhahaa akhlaaq xun? akhlaaq xun waxaa la dhahaa waxa aad diidan tahay haddaa rabto samee, been baad sheegaysaa, adoo og inay xun tahay baad sameynaysaa. qofku dhahaya beentu waa wanaagsan tahay ma jirto, sababta waxay ka soo horjeedaa abuurka Ilaahay qofka uu jirkiisa iyo shakhsiyadiisa u sameeyay oo islaamku uu yaqaano al-fitra. maxaa marka ka timaada qiyamta anshaxa qofku xagee buu ka soo dhashaa oo uu ka yimaada? wuxuu marka hore ka yimaadaa waxa uu bartay, sidoo rabaa ku barto ama TV ha ka barto ama warbaahin ha ka barto ama environment-ka uu ku dhexleeyahay ku barto. waxa barashada uu ku helay waxay saameyn ku yeeshaan anshaxiisa shakhsiga iyo habdhaqankiisa shakhsiga ah. waxaa kaloo saameyn ayadana ku yeelata waxa uu noloshiisa la nool yahay ee uu arko, ee waxbarashadiisa ku arko, ee gurigiisa ku arko, ee deegaankiisa ku arko, ishiisu ay qabanayaan. labadaas marka waxaa ka dhalanayaan qofkan inuu go'aan ka gaaro rabitaankiisa waxa uu sameynayo iyo waxa uusan sameynaynin, laana qofkan wuxuu noqday qof samaysmay oo anshaxiisu mar hore uu samaysmay. taas waxay keenaysaa marka talaabaqaadkiisa waxa xukumaya labadaas aan soo sheegnay ah waxa maskaxdiisa galay oo bartay ama wax ishiisu qabatay. labadaas waxay abuurayaan qofkan qiyam kale ama qiyam xun leh ama qiyam fiican leh. markay qiyamku wanaagsan yihiin oo qofku anshaxiisa wanaagsan yahay oo akhlaaqdiisu wanaagsan tahay wuxuu gaaraa heerar aad iyo aad u sareeya. heerarkaas Ilaahay culimadu ka gaarsiiyaan qofku si uu anshaxiisa u ilaaliyo wax kasta u huraa. dabeecad wuxuu u huraa noloshiisa, wuxuu u huraa dhaqaalihiisa, wuxuu u huraa shaqadiisa. mararka qaar wuxuu u huri karaa anshax wanaagsan sidoo u ilaashado naftiisa u huraa. sababta ugu huraya naftiisa maxay tahay? marka uu dhinto ka bacdi wuxuu ummadiisa iyo bulshada uu la noolaa wuxuu ka helayaa aqoonsi iyo tixgelin u waaraya. oo maxaan dhahaynaa? waxaan oranaynaa qofka hebel la yiraahdo diinta darteed buu u dhintay, qofka hebel la yiraahdo ummadda darteed buu u dhintay, qofka hebel la yiraahdo xoreyn darteed buu u dhintay. waxa mararka qaar xataa dadku natural u arkaan ama dabiici u arkaan qofku inuu dulmiga la dagaalamo. adigoo meel maray hadaad dulmi aragto, dulmigaas ka hor tagto, hadaad ku dhimato dadka dhexdiisa xataa geeridaada ka bacdi waxaad ku yeelanaysaa qof qiyamtiisu la ixtiraamo oo la qadariyo. marka ay timaado hadaad rabtid inaad qiyam wanaagsan hesho
oo mid wanaagsan aad la soo baxdo xageeba ka keenaysaa waxaad ka keenaysaa waxbarashadaada oo u baahan qofka marka hore wax la barayo in la baro qiyam wanaagsan wuxuu kaloo ka helayaa waxa uu nolosha ka fahmayo waxaas laftigeeda la barayo sidee buu fahmayaa waa inay jirtaa cid hagta oo si wanaagsan fahamka ugu socda wuxuu kaloo qofku qiyamka ka helaa caqligiisa ama garashadiisa siday tahay caqliguna asalkiisa markii la soo koobo waxay noqotay in aad fahamto waxa danta ku ah aadna fahamto waxa aan danta ku ahayn wuxuu kaloo qofku ka gartaa waxa af carabiga lagu yiraahdo alfitna ama af Soomaaliga lagu oran karo dhiifoonaan qof maskaxdiisu ay soo jeedo oo degdeg wax u fahmi kara maskaxdiisuna ay degdeg wax u qaban karto inta marka la isku daray markay qofkii waxa u soo baxaya inuu yeesho fikrad saxsan ama fikrad khaldan culimadu waxay yiraahdeen fikrad sax maxaa la dhahaa fikrad sax waxa la dhahaa waxa kugu soo dhacay marka aad nolosha ku dabaqdo ee aad nolosha la falgeliso ka dhalan kara noloshu inay wanaagsanaato dadkuna ku qiraan fikrad khaldanna waa shay maskaxdaada ku soo dhacay markaad nolosha la falgelisay oo nolosha u geysay waxa soo baxday inay wixii nolosha aysan u wanaagsanayn sida darteed qofka waxa la rabaa anshaxaas uu soo diyaariyay ee maskaxdiisu soo diyaarisay ee tarbiyadiisu soo diyaarisay inuu u gudbo heerka labaad oo la dhaho rabitaan maxaa way waxa rabto adiga inaad gaarto rabitaankaas muxuu ka imaanayaa waa inaad waxa aad rabto ay yihiin wax go'aankaaga ka dhashay oo maskaxdaada ka yimid waxaasuna ay sax noqdaan waxaasuna ay keenaan dadku inay raali kaaga noqdaan oo bulshada ku aragto waxaan rabitaankaagu ka imaanayaa maadaama uu ka imaanayo dadku inay qiraan wallahi waa rabitaan wanaagsan rabitaanka wanaagsan marka waa inuu laba shay midna ka leexdo midna lagu dhiso waxay tahay in laga leexdo wax kastoo carag ka yimid wax kastoo damac shakhsiya oo shahwo ka yimid wax kasta oo degdeg ka yimid wax kasta oo qiimo dhac ka imaanaya intaa haddii aad nafta ka ilaaliso waxay u gudbaysaa rabitaanka wanaagsan ee ka imaanaya xikmad deganaansho kaadsiyo kuna dhisan maslaxadaada dantaada iyo danta ummadda marka haddii aad fahamto tallaabo rabitaankaagu hadduu ka jawaabayo caro hadduu ka jawaabayo shahwo hadduu ka jawaabayo degdeg waxaad ogaanaysaa rabitaankan inuusan sax ahayn haddii laakiin xikmad uu ku dhisan yahay deganaan ku dhisan yahay dantaada ku dhisan yahay danta ummadda ku dhisan yahay waa rabitaan saxa saa darteed qofka bini aadamka ah marka uu rabitaan samaynayo mar wuxuu doortaa wax aad u sarreeya mararka qaar uusan filanaynin qof baa rabitaankiisu wuxuu yahay inuu janno galo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu janno siiyo oo marka dambena ilaahay uu dhaho udkhuluuha bisalaam daalika yowmul khuluud oo waxaan adigaa soo shaqaystay maadaama aad rabtay qof baa sidiisaba wuxuu dooranayaa wax wanaagsanba waqtaara muusa qowmahu yacni nebi muuse ummadiisa mar walba wuxuu u doori jiray waxa u wanaagsan ayaga oo ayaga maslaxadooda ku jira nimankii dhalinyarada ahaa maxay doorteen waxay doorteen wax wanaagsan ilaahay inay rumeeyaan bay doorteen innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa waxaa kaloo jira inaad mararka qaar kala doorato wax fiican sida ay u kala fiican yihiin wax fiican baa haysataa wax kaloo kasii fiican baad heli kartaa wax kaloo kasii fiican baad heli kartaa sida darteed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gaarsiinayaa inaad ummadda ka sarrayso maadaama aad wax fiican mar walba dooran kartid waatan ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aankiisa ku dhahay in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hiya wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fa huwa khayrun lakum oo ah sadaqada haddii aad meel fadhido lagu yabooho inaad gacanta taagto tiraahdo intaasaan bixinayaa waa wax fiican haddaad hoos u bixinaysana iyaduna way fiican tahay labadaba waa kala dooran kartaa waxaa jira dad mararka qaar doorashadoodu ay xun tahay oo wax liita bay waxay ku bedelanayaan wixii fiicnaaba inta iska tuuraan bay wax liita ku bedelanayaan atastabdiluuna alladii huwa adnaa biladii huwa khayr sidaa darteed qofka waxaa la rabaa inuu samaysto marka hore inuu iska soo saxo jidka uu ku samaynayo anshaxiisa oo qiyamkii ah iyo rabitaankiisa jidka uu ku soo samaynayo jidkaas muxuu ka bilowdaa qanaacadaada inaad soo saxdo qanaacaduna waa waxa la rabo naftaadu inay raalli ku tahay oo la rabo inaad soo saxdood ka dhigto wax ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli ka yahay waxaa kaloo rabaa inaad soo saxdo waxaad adiga aqbali karto ood gaarto heer aad u samaysan tahay aqbalkaagu inuu ku dhisan yahay waxaanu xukun ahaan ma bannaan yihiin maslaxa ahaanna ma wanaagsan yihiin sidaa darteed waxaa gaaraysaa marka dambe ilaahay subxaana wa tacaala inuu adigana albaabada kuu furo oo kugu hanuuniyo kugu toosiyo mar kasta waxa wanaagsan ilaa marka dambena aduguna aad gaarayso inaad ku ducaysanayso alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowla an hadaana allah midda u dambaysana waxaa weeye qofka in la gaarsiiyo
inuu wax wanaagsan u arko in asaga uu qof wanaagsan yahay oo loola jeedo runta inaad sheegtay aad ku faraxsan tahay sadaqada inaad la baxda inaad ku faraxsan tahay axsaan inaad dadka u samaysay inaad ku faraxsan tahay cagsigeedana aad u aragto wax ceeb ah oo aan ku qalmin sidaa darteed qofka noqonaya hogaamiye raba inuu ummad hogaamiye u noqdo marka koowaad waa inuu anshaxiisa wanaagsan yahay marka labaadna waa inuu rabitaankiisa wanaagsan yahay oo ay ka dhalanayso marka hogaamiyahaasu inuu awood u yeesho fikradda maskaxdiisa ku jirta inuu u bedelo wax nolosha dadka saameynayo midda labaad inuu leeyahay go-aan qaadasho aanan ku jirin khalkhal ama waxa la yiraahdo hashkatayn marka rabto inaad go-aan gaarto go-aankaas inuu yahay go-aan fa idaa cazamta fatawakkal cala allah midda saddexaadna waa inaad tahay qof cadaalad ku caan ah oo dadka la shaqeynaya cadaalad u sameynaya ummadda uu gogaankeeda hayana cadaalad u sameynaya meeshaas waxay ka dhalan doontaa marka dadku inay adigana ku aqoonsadaan inaad tahay hogaamiye wanaagsan kaama fiirinayaan waxqabadkaaga materialka ama maadiga ah waxay kaa fiirinayaan anshaxaaga wanaagsan ee ay ka arkeen inuu ku dhisan yahay tarbiyad markii hore adiga kugu abuurnayd adigana waxaad heli doontaa inuu kuu furmo albaab sheegaya dareenkaagu inuu yahay dareen dadka ka sareeya ka wanaagsan oo aadan la mid noqonaynin ilaa dhibaatada ay dhacday ku taabato inaadan wax ku fahmin laakiin aad leedahay dhiifoonaan aad ku akhrin karto mustaqbalka waxaana ka heli doontaa in lagaa dhaxlo adiguna aad dhaxasho sumcad wanaagsan oo nebiyadii ilaahay subxaana wa tacaala soo diray oo dhan waxaan annaga ka dhaxalnay inay ahaayeen ambiyo ayaguna wanaagsanaa taariikhdoodii iyo siiradoodii iyo hidahoodii markiina loo soo akhriyeyna waxay noogu soo aroortay inaan annagana raadkoodii ilaahay uu noo reebay wataraknaa calayhi fi laakhiriin yacni in mar walba adiga maskaxdaada ay ku harayso nebi muuse taariikhdiisa aad darsayso nebi ibraahim taariikhdiisa aad darsayso nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad u darsayso oo aad u darsayso dabeecadoodii rabitaankoodii wuxuu ku dhisnaa saa darteed waa meesha aan rabna markaan anshaxa noo hagaago rabitaankana noo hagaago ilaahay magacyadiisana aan baranno inay intay isla falgalaan ay noo soo baxaan mujtamac wanaagsan hogaamiye wanaagsan uu ka dhalan karo والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحنو كهلينا الشراء تحناه oo magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala aan marba magac uga hadli doono oo aan ka hormarinayno dhowr cashar oo horodhac ah oo inta aanan gudagelin sharaxaadda magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka hormarinayno casharkanagan oo ka mid ah casharada horodhaca ah waxa uu ka hadlayaa nafta bini aadamka ilaahay uu sameeyey ee uu nafta geliyey la yiraahdo nafta ama ruuxda noocyada uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u qaybiyey waana nafta marka dambe aan rabno inay ku dhaqanto fahamto weelayso nolosheeda ku darsato habka loola falgalayo marka qofku muslimka uu barto magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin waxaan doonaynaa inaan cashirkan uga hadalno qofka bini aadamka ay ka kooban jir iyo ruux ama naf ka kooban naftaasu inta nooc ay quraanka ugu soo aroortay si aad u fahamto dabeecadaha dadka ilaahay u kala sameeyey dabeecadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqigiisa iyo dadkiisa uu abuuray uga digay adiga laftigaagana ay ku noqoto cashir aad ku fahamto qofka dabeecadiisa sidoo kale waxaan yara taabanaynaa naf walba nooceeda sida uu quraanka u cabiray iyo sidaas uu cabiray macnaha kooban ee laga fahmi karo ee lagu garan karo waxa ay tahay nafta nooceeda nafafta noocaasa marka ay bini aadamku ilaahay subxaanahu wa tacaala geliyey qaarku waxaa la yiraahdaa an-nafsu al-ammaaratu bis-suu oo ah midda garanaysa waxa wanaagsan ee habboon laakiin cagsigeeda sameynaysa waxaa loola jeedaa al-ammaara bis-suu waxaan inay xumaan yihiin way garanaysaa in laga tagana way garanaysaa oo waxa wanaagsan la sameeyo laakiin haddana waxay qasbaysaa oo ay ku qasbaysaa qofkii inuu sameeyo waxa aan habboonayn ee ah waxa xun sida darteed waa naf mar walba ku faraysa kugu dhiirigelinaysa qayb ka noqonaysa inay ku tiraahdo naftaadu waxaan samee oo ayada aad dareemayso inay ku dhiirigelinayso oo ay ku riixayso waa ka ilaahay quraankiisa ku dhahay wamaa ubari'u nafsii
ina الnafsa laamaarat bالsuuءi ila ma raxima rabbii. sidaa darteed waxyaabaha laga magangalo ilaahay subxaana watacaala bay ka mid tahay in naftaadu ay noqoto naf ku hagaysa xagga xumaanta iyo khayr darada iyo sharta ku hagaysa. sidaa darteed qofka waxa ku xiran ee nafta ah waxaa rabaa inuu ka adkaado, aysan noqonin naf amarta waxyaabaha khaldan. midda la ammaanay waxa weeye midda qur-aanku uu ku sheegay annafs zakiya, oo ah midda mar walba nafteeda ku talagelaysa inay nadiifiso oo ay daahiriso, hadduu khalad ka dhaco hore ka daahiriso, iskuna dayda waxa haboon ee wanaagsan ee quruxda keenaya, ee qaayaha keenaya, ee sharafta keenaya inay samayso. wata qur-aan ku aragteen qaala aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafs, yani naftu marka ay daahir tahay oo ay dembi la-aan tahay oo berimageyde ay tahay oo waxba in loo geystaba aysan ahayn baa laga cabiray. sidaa darteed waxaa la rabaa adiga naftaada inaad gaarsiiso naf sidaas daahir u ah oo wanaagsan oo dhibaataba aan ka fikirin, dhibaatana aan loola imaan karin. nafta nooceeda saddexaad waxaa la yidhaahdaa waa nafta aakhiro kula doodi doonta, ee ku maxkamadeyn doonta, ee iyadu kugu marqaati furi doonta waxa aad adduunyada kusoo gashay, ee mararka qaar sheegi doonta wixii aad soo fashay markaad adduunyada joogtay, ama khayr ah ama shar ah, oo iyadu kugu garqaadi doonta oo ku sheegi doonta. waxaa kaloo la yidhaahdaa nafta mujaadalada la yidhaahdo waa nafta qofka u dhashay muranka iyo qardadacda iyo maanta oo dhan aadan waxba ka dhaadhacsiin karin, waxnana aadan fahamsiin karin. mararka qaarna insaanka dabeecadihiisa qaarkood ayba ku jirto inay tahay naftu mid muranka jecel oo dooda jecel. sidaa darteed ilaahay waa laga magangalaa adduunyada intaad joogtana inaad noqoto qof muran badan, oo mararka qaar waxaa jira calaamadaha munaafiqiinta lagu garto. waxaaba ka mid a sida nabiga calayhi salaam sheegay, idaa khasama fajar, marka uu rabo inuu kula moormo wuxuu raadinayaa inuu kaa adkaado ama inuuba kugu xadgudbo, laakiin ma raadinayo inuu hanuun helo ama wadada saxda ah uu soo aado. sidaa darteed waa laga magangalaa inay naftaadu noqoto mid adduunyadana muran ku galisa, aakhirana kugu noqoto in iyadu laftigeeda kugu marqaati furto ama ayba noqoto midii kugu doodaysay. yowma ta'ti kullu nafsin tujaadilu can nafsiha. inta adduunyada joogtana waa laga cararaa inaad noqoto wa kaana alinsaanu akthara shayin jadala, qof muran u joog ah oo adduunyada muran la taagan. waa sifooyinka nafta ay leedahay mid ka mid a kuwa laga cararana ay ka mid tahay. waxaa kaloo naftaada lagala cararaa inaad noqotid nooca kale ee qur-aanku sheegay la yidhaahdo annafsu almafrita, nafta iyadoo isku xadgudubta, ee iyadoo dulmiga isku samaysa ama dadka ku xadgudubta, oo marka dambe aakhire markaad tagto ku gaarsiinayso inaad ka shalayso, an taquula nafsun yaa xasrata calaa maa faradtu fii janbi illaah. marka qofka naftiisu haddiiba ay gaarsiinayso inuu marka hore dayaco, marka hore meel cidlaa isdhigo, marka dambena uu ka shalaayo, waxay kuu keeni doontaa inaad noqotid naf ayadoo isku xadgudubtay oo dhibaato isku samaysay, xadgudubkeedaasna marka dambe uu gaarsiiyo inay iska shalayso oo iyadu ay iscanaanato. waxaa kaloo jirta nafta la ammaanay ee wanaagsan ee la yidhaahdo annafsu almutma'ina, oo ah naf xasiloon oo degan, oo ilaahay subxaana watacaala adduunyada markay joogtayna uu deganaan siiyey. ruuxdeeda marka lasii qaadanayo oo ay aakhiro u gudbayso, oo naftii ruuxdii iyo jirkii la kala jarayana waxay u gudbaysaa inay tahay naf degan oo qabow oo xasiloon. yaa ayatuha annafsu almutma'ina irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya. oo loola jeeda naftan marka horeba ilaahay baa keenay, adduunyada keenay. markuu adduunyada keenayna wuxuu u keenay inuu ku dulbeero jirkan, uu ku dulbeero. laakiin marka la ceshanaya waxaa la ceshanayaa iyadoo xasilan oo degan oo raalli iska ah oo ku qanacsan inay intay nooleydna wax wanaagsan kasoo shaqaysa adduunyada, rajana ka qabta aakhira hadday tagto inay si wanaagsan u noolaan doonto. waana darajooyinka ugu sarreeya mid ka mid oo ah in naftaadu ay noqoto almutma'ina, mid mar walba iska xasiloon oo adduunyada ku xasiloon. sidaa darteed culamada muslimiinta waxay yidhaahdaan cibaadadu nafsiyan waa wax xasilooni keena, waana wax qofku uu raalli ku yahay oo naftiisu ay ku degan tahay. macsiduna waa wax fudayd iyo deganaan la-aan iyo wareer keena, naftuna aysan marka dambe raalli ka ahayn. sidaa darteed waxaa ilaahay la weydiistaa mar walba inaad noqoto dadka la yidhi naftoodu waa naf xasiloon oo degan. taa waxay ku keenaysaa marka caafimaadkaagu inuu deganaado, noloshaada deganaato, bulshada dhexdeedana qof degan oo qiimo ku dhex leh inaad ku noqoto. sifooyinka kale oo ay naftu leedahay waxaa weeye nafta la yidhaahdo almaakira, waa midda wax shirqoosha ee ka shaqaysa shirqool, oo mar walba samaysa inay wax un isku dabagediso, wax un ay shirqoosho. dadka qaarkood culimmada muslimiinta ah iyo kuwa cilmu nafsiga ka shaqeeya waxay yidhahdaan sifada makrigu ma ahan sifo ayada xun,
mana ahan sifo ayadu ay fiican tahay. Yani lama oran karo qofkaanu makriga waxa la yiraahdo waa wax xun ama makriga waxa la yiraahdo waa wax fiican, labadaba lama dhihi karo yiraahdeen. Waxa laga fiirinayaa bay dhaheen makrigu waa aalad la isticmaalo, aaladaas marka ma waxa uu isticmaalaysaa wax wanaagsan mise waxa uu isticmaalaysaa wax xun. saadarteed waxa la caayo waxa waaye almakru sayyi, shirqoolka xun oo aad reerkaaga ama ehelkaaga ama qofka wanaaga kaa filinaya aad ku samaysaba inta badan aad iyo aad loo maagay, aadna loo qabiixiyey, wax fool xun laga dhigay. waata ilaahay uu leeyahay walaa yaxiiqu almakru sayyi'u ilaa biahli. laakiin haddii aad rabtid inaad samayso makri aad wax ku badbaadinayso oo aad wax ku hagaajinayso ama aad wax ku anfacayso, yani maalan muslimiin iyo waxa isdiriraya cadowgoodii, waxaad keenaysaa qorshe iyo shax aad ku shirqoolayso ciddii aad isleynayso inuu cadowga kugu ahayd, laakiin la rabo inaad ku gaarto guul, aad rabto inaad muslimiinta ama dadkii aad la jirtay aad ugu keento. sidaa darteed markaad wadankaaga ku anfacayso, ummadaada ku anfacayso, waxaa lagaa rabaa inay noqoto wax aanan ahelkaaga iyo dadka adiga ehelka ku ah aadan u isticmaalaynin, ee aad u isticmaalayso wax aad wax ku badbaadinayso. sidaa darteed culimada psychologiga qaarkood waxay yiraahdeen qof maakira haddaad wanaag kula dhaqanto oo aad si fiican oo ixtiraam leh oo qadarin kula dhaqanto, wuxuu u qaadanayaa weligiis iyo alihiis inuu yahay qof guulaystay. laakiin qofka makriga ka shaqeeya waxaa la rabaa inaad adigana makrigiisii kula dhaqantid oo aad sida uu sameeyey samayso. laakiin waxaa loo xiraa laba shardi. shardiga koowaad waxaa weeye waxa aad samaynayso waa inay noqdaan wax u adeegaya dan guud. midda labaadna waxaa la rabaa inay noqdaan wax keenaya in aydan ka baxaynin ballamo idinka dhexeeyay. sidaa darteed dadka qaar ba waxay isku khaldaan ballanta qofka aad la gasho inaad ilaaliso waad ku khasban tahay, waana waajib. dhaqanka dhagarta la yiraahdo ee qofka inaad dhagarto oo aad marka hore ballanta kusoo khiyaantana sharci ahaanna waa xaaraan, dhaqan ahaanna waa mamnuuc. laakiin waxaa loola jeeda waxaa weeye kasifada la dhaho makriga ama shirqoolka, ama af soomaaliga ereyga shirqool baa ugu dhow. waa sifo la adeegsado, wax fiicanna loo samaysan karo, wax wanaagsanna loo samaysan karo. tan ugu xunna waa midda aad ku samayso cidda kaa filanaysa inay wanaag kaa sugaysay. yani maalan makriga meelaha mamnuuca ka yahay waxaa ka mid ah qof baa wuxuu kaa rajaynayaa inay wanaag idinka dhexeeyaan, waxaa idinka dhexaysa wada shaqayn, waxaa idinka dhexaysa shirkad, waxbaad shirkad ku tihiin. wax kasta oo aad kala hadlayso wuxuu u haystaa inay lilaahi kaa tahay oo ay daacad kaa tahay. sidaa darteed mucaamaladaas mucaamalo aad shirqool dhexgelin karta ma ahan, sababtoo ah qofkaas wuu ku aaminay, kalsooni buu ku siiyey. kalsoonida uu ku siiyey inaad ku xadgudubto waxay noqonaysaa khiyaano bay noqonaysaa. sidaa darteed ilaahay subxaana watacaala makriga markuu ka hadlayo wuxuu yidhaahdaa mararka qaar wamakaruu wamakara allaahu wallaahu khayru lmaakiriin, oo loola jeedo ilaahay subxaana watacaala khalqigiisa wanaagsan ee muslimiinta ah khayr ka shaqaynaya si uu u anfaco. mararka qaar wuxuu u sameeyaa qorshayaal iyo fikrado ay ku badbaadayaan oo ka karti sarreysa ama ka miisaan fiican ama ka shax wanaagsan midda ay ayagu dejisteen oo ay samaysteen. sidaa darteed haddii aad rabto inaad samayso makri, shuruudihii aan soo sheegnay waa inaad mar walba maskaxda ku haysaa ehelkaaga iyo dadka kaa filanayana aadan ku samaynin. nin ka mid a reer Quraysh baa wuxuu arkay Abulahab oo keligii meel jooga oo qoyskiisii oo reer Bani Hashim ahaa dhammaantoodna inta la cunaqabateeyey, maka banaankeeda la dejiyey, aad loo rafaadiyey. markaasuu wuxuu arkay shirkii oo loogu tashanayay reer Bani Hashim, Abulahab oo fadhiya, oo Abulahabna waa taqaanaan waa nabiga calayhi salaam adeerkiis weeye, laakiin ra'yi ahaan kasoo horjeeda. markuu Abulahab dhaqaaqayba wuxuu yidhi ninkaanu qorshaha uu nala dejinayo waanu baahnayn, waana ku guulaysanay, reer Bani Hashimna waa isaga celinay, waa isaga qabanay qorshahan iyo shaxdan uu nala dejiyey. laakiin maanan ku farxayn inuu Abulahab aniga ehelkayga yahay oo aniga uu qaraabo ila yahay. laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inuu ehelkiisa ila shurqoolayo oo ila dhibaateynayo oo qorshihii uu ii keenayo, laakiin ma aha buu dhahay in ehel laga dhigto oo qaraabo laga dhigto. yani waxaa loola jeedaa meel ay ku fiican tahay makriga waa inay jirtaa, meel aysan ku habboonayna waa inay jirtaa. xayndaabka aad ku dhex jirayso oo aad ku kala saaraysana waa inaad taqaanaa. waxaa kaloo jirta midda taa u dhow ah annafs almakida, yani in aad adigaba u samaysan tahay dadka inaad shar ku dhibaatayso oo aad shirqool u dhigto oo aad dhibaato ku samaysato. saa darteed inta badan waa la diidaa, waana iyadana badaxay ku jirtaa waxyaabaha aan bannaanayn. innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan famahil ilkaafiriina amhilhum ruwayda. sidaa darteed qofka inaad sidiisaba marka hore dhagar usii diyaariso oo aad qorsho usii diyaariso oo aad ku dulminayso ama xaq uu leeyahay aad ku dhaafsiinayso lama ogola.
waxaa kaloo nafta wanaagsan lagu ammaanaa in nafta la yidhaahdo annafs almustabsira waa nafta indhergaradka ah ee wax garanaysa ee xaaladda ay ku nooshahay qiyaas ka haysata xaaladda ku habboon qiyaas ka haysata khalqiga ilaahay uumay ee koonka ilaahay uu uumayna ka haysata indhergarad iyo fikir iyo si qoto dheer u fiirinaysa waxyaabaha ilaahay uu sameeyey wafii anfusikum afalaa tubsiruun bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira yani waxaa la rabaa inaad noqoto naf indhergarad ah oo xaaladda koonka fiirin kara naftiisa fiirin kara geela fiirin kara badda fiirin kara khalqiga ilaahay siduu u kala bedelay luqadooda iyo dhaqankooda iyo habeen iyo maalin uu isu dhaafsiiyey fiirin kara waa inaad noqoto nafafta aan wanaagsanayn waxaa ka mid a nafta la yidhaahdo doqonta safiih annafs safiih yani naf doqon ah oo aan garanaynin waxa ay habboon tahay inay samayso aan garanaynin xaaladda ay ku dhex jirto waxa ugu habboon aan garanaynin ficilkeeda maxaa u wanaagsan qowlkeeda maxaa u wanaagsan oraah ahaan maxaa u wanaagsan ama labadaba u wanaagsan waad aragtay qofaad taqaano ama qofaad garanayso oon si un ula noolaatay oo markuu hadlayo hadal xun ku hadla ficil markuu sameynaya ficil xun sameeya oo dadka markay u cudurdaarayaan ay oranayaan walaahi waa dabeecadiisa oo sidaas uu isaga hadlaa ama sidaasayba dhaqankiisa tahay xumaan ulama jeedo yani soomaalidu mararka qaar waxaa laga yaabaa inay ammaan ula jeedaan ama cudurdaar ay ku raadinayaan laakiin nafta safiiha la yidhaahdo ee doqontaa naf wanaagsan ma ahan qofka saxda waxaa la rabaa waxa qowlkaaga hadalka afkaaga kasoo baxay inuu ku xisaabsan yahay ficilka aad samaynayso uu ku xisaabsan yahay haddii aad isku mar wax samaynayso ama ficil iyo hadal wada samaynaysana waa inay ku xisaabsan yihiin sida darteed qofka naftiisa doqomaysanaya ama ficilada doqonka ku dhaqmaya lama ammaano lamana jeclo waman yargabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsah waayo qofku wuxuu gaarayaa inuu xataa dantiisa aqoon waayo waxay gaarsiinaysaa inuusan ilaahay aaminin waxay gaarsiinaysaa inuusan diinta ku dhaqmin waxay gaarsiinaysaa inuusan waxa saxda ah uusan qaadanin oo uusan ku dhaqmin heerka kasii xuntaa waxaa weeye nafta la yidhaahdo nafta gardarrada u samaysan oo dulmiga jecel nafsi dhaalima waxayba jeceshahay inay wax dulmiso waxay jeceshahay xuduudeeda inay dhaafto waxay jeceshahay inay mar walba waxa loo diiday ay samayso mararka qaarna ay nafteeda ku xadgudubto ama ay khalqiga ilaahay uma ku xadgudubto ama bulshada oo dhanba ay xadgudub ku samayso taana marka dambe way shalaysaa oo nolosheedana shalay baa u dambeeya walow anna likulli nafsin dalamat ma fi lardi laftadat bih macni waxaa laga doonayaa qofka muslimka in waxyaabaha iska ilaalinaya inay tahay in naftiisu ay noqoto naf gardarrada jecel oo dulmiga jecel oo dadku inay isdulmiyaan xataa mararka qaar ku farxaysa waana waxyaabaha ilaahay laga magangalo ee aan wanaagsanayn waxaa jirta naf la yidhaahdo nafta mar walba waxa macaan kale iska jeclaata mar walba waxa fiican iska aada mar walbana iska dhaanraac iska ah nafsul muraawida yani wax unbay maanta iska doonanaysaa damaca maamula haddii shahwo u baahato shahwadii iska aadi haddii hadal xun u baahato hadalka xun bay iska aadi mar walba wixii maskaxdeeda kusoo dhaca unbay hore ka aadaysaa waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsi yani waa wax aan wanaagsanayn wiilkii gurigaaga joogay maxaan ku irahdaa qurux inta ka fiiriso haweeneydaas ay rabtay ninkeeda inay khiyaanto nebi yuusufna ay dembi geliso yani wax xun weeye qofku in waxay kusoo dhacaba uu hore ka samayn karo oo damac raac uu noqdo oo damaciisa uu iska maamulo waxaa kaloo la jeclayn naftu inay fulay noqoto oo naf maanta oo dhan shakisan oo waswaasan oo cabsanaysa oo baqaysa inay noqoto lama rabo waxaa la rabaa naftu inay noqoto naf waxa ay ku fikirayso ka fiirsata haddii ay ku qanacdana samaysa laakiin cabsida ku dhisan malaha ku dhisan shakiga ku dhisan lama jeclo fawjasa fii nafsihi khiifata muusa yani naftaada waxaa la rabaa inaad cabsida badan iyo walwalka farada badan aad ka ilaaliso ee ku dhisan qiyaasta malaha ah ee aan ku dhisnayn xog sax ah ama macluumaad sax aan ku dhisnayn waxyaabaha aanan la jeclayn nafta waxaa ka mid a nafta la yidhaahdo nafta bakhiilka ah ee xoolaha jecel ee inay wax ka baxaan diidan ee waxa ay bixinaysa dhibsata ee dadka inay wax siisa dhibsata mararka qaar gaarsiisan xataa inay macni wax kasta oo wanaagsan in wax ku bixiso diida oo gacanteedu ay adag tahay oo gacan adag ay noqotay lamana jecla ilaahayna subxaana watacaala ma amaanin waman yabkhal fa inamaa yabkhalu can nafsi xoolahan aad diidayso oo adina bixiso diidayso wax aad aduu naftaada u diiday waaye sababtoo haddaad bixiso ajir baa ka heli lahayd khayr baa ka heli lahayd sumcad wanaagsan baad ummadda uga dhex heli lahayd waxaa kaloo ayadana la mida nafta la yidhaahdo annafsi shaxiixa oo meesha kasii daran ah oo bukhliga waxaa kasii dambeeya qofka inuuba sii jeclaado yani xoolo jaceylkiisa inuu gaaro waa cudur markii bukhliga laftigiisa uu kugu sii noqdo cudur uu kugu sii noqdo culammada qaar baa waxay yidhahdaan bukhligu waxaa weeye qofka jecel
inaysan waxba ka bixin. shaxiixuna waa qofka dad waxaysa siinaya dhibsanaya. laba qof waxaysa siinaysa hadduu arkayo waxaa laga yaabaa inuu isdhaho warkaa muxuu xoolihiisa ugu cayaaraya. sida darteed waxyaabaha ilaahay laga magan galo oo ilaahay subxaana watacaala la weydiiso inuusan kugu ridin bay ka mid tahay nafta bakhaylka ah iyo nafta shaxiixa ah. waxaa kaloo la necab yahay nafta la yidhaahdo annafs annaakitha, nafta jecelba ama uga samaysanba ballanta markay gelaysa inay kasii baxaysa usii qorshaysan tahay, ama ballanta markay gelaysaba maskaxdeeda ku jirto inay wax sirayso, daacaddu ay ku yar tahay, ballan fulintu ay ku yar tahay. waana dhaqamada uu qur-aanka aad iyo aad u ceebeeyey bay ka mid tahay. waman nakatha fa inamaa yankuthu calaa nafsi, waman nakatha fa inamaa yankuthu calaa nafsi. sidaa darteed naftaanu haddii ay ku barto ballanfuryada oo waxyaabaha aadka iyo aad ceebta u ah, qofkana sharafka iyo maamuuska iyo suunada iyo qiimaha uu bulshada ku dhex lahaa ka tirtirayo bay ka mid tahay. waxaa la ammaanaa nafta la yidhaahdo annafsu almu'thira, waa nafta wax deeqda ee marka koowaad waxay haysata raalli ku ah waxa dadka haystana uusan damac uga jirin. yani 3 sifay leedahay naftan la yiraahdo an-nafs al-mu'thira, waa nafta wax quurta. marka koowaad waxa ay haysatay raalli ku tahay. marka labaad dadka waxay haystaan damac ugama jiro. marka saddexaadna waxay awood u leedahay waxa ugu yar oo ay haysato u soo haray inay bixiso. waana darajooyinka ugu sareeya oo marka la joogo wax bixinta la gaaro. wayuthiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa, yani waxa la rabaa waxa adiga mararka qaar u baahan tahay inaad bixin karto. dadka yaqaana yani farqiga u dhaxeeya deeqsinimada iyo iithaarka waxay yiraahdaan deeqsinimadu waa waxa aad ka maaranto inaad bixiso, laakiin iithaarku waxa weeyaan waxa aad ka maarmin inaad qoorto. yani waxa aadan adiguba ka maarmaynin inaad sii bixin karto oo aad gaarsiin karto, dhigi karto maanta intaasoo cuntaa baan haystaa ama 100 shilin baa igu haray laakiin waan quuray waan bixiyey. laakiin deeqsinimadu waxay dhaheen waa waxa aad ka maaranto oo baahi degdeg ah aadan u qabin inaad bixin karto. nafta kale aadka loo amaanay waa nafta la yiraahdo an-nafs as-sawiya, nafta wanaagsan ee toosan ee isku hagaagsan ee kala garanaysa waxa xun iyo waxa dhowrsanaanta ah. wa nafsin ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, wa nafta cadaalada jecel, sinaanta jecel, miisaanka jecel, mar walba garanaysa waxa toosan ee ku haboon iyo waxa aan toosnayn ee aan naf ahaan iyo qof ahaan ku haboonayn. nafta kale waxa la yiraahdaa waa nafta la yiraahdo al-lawama, waa nafta mar walba an-nafs al-lawama. fala uqsimu bin-nafs al-lawama, yani waa nafta is canaananaysa, waxayna isku canaananaysaa waxay og tahay inay khayr ahayd baysan samaynin. hadhowba waxay leedahay wallahi waxaas khayr bay ahaayeen maxaan u sameyn waaye. waa meesha laga dhiirigelinayo nafta in la baro inay naftu ahaato naf go-aanka ay gaarto ku dhaqmi karta, khayr hadday damacdana isla markiiba u dhaqaaqi karta. nafta la amaanay waa nafta la yiraahdo nafta caadilka ah ee mar walba cadaalada jecel oo bulshada oo dhan waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala amray iyaduna qayb ka ah. inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, yani saadarteed waxa la rabaa inaad barto naftaadu inay mar walba jeceshahay cadaalada oo ay ku roonaanayso inay cadaalada ka shaqeyso. sida darteed waxa la rabaa diinta islaamka marka la ilaalinayo oo la waardiyeynayo waxyaabaha lagu waardiyay waxa kamid ah kow in aad naftaada taqaano ciladaha ay leedahay oo intaasoo nooc oo ciladaha oo naftu leedahay intaad daraasayso naftaadana daraasayso inaad ka ilaaliso oo aad ka waardiyeyso. laba waxaa laga rabaa inaad barto naftaada waxa wanaagsan haddaysan marka horeba u dhalanin oo dabeecad ahaan u lahayn inaad ku qasabto inay qaybta wanaagsan oo nafta aan soo sheegnay inay yeelato. waayo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah uu leeyahay waxay u baahan tahay kitaab hanuunsan oo ku hanuuninaya oo adiga ku ilaalinaya oo jidka toosan kugu aadinayo kama maarmayso. wayna u baahan tahay waxay kale u baahan tahay safety u gargaari lahayd ee kitaabkaas nolosha ku soo leexin lahayd ee quwad iyo xoog u noqon lahayd. وكفى بربك هاديا ونصيرا والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan wadnaa taxanaha aan uga hadli doono magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aan sharaxaad faahfaahsan magacyada Ilaahay ka bixin doono. waxaan wadnaa inaan ka hormarino casharo aan u bixinay casharo horodhac ah si hadhow ay dhuuxid iyo faham iyo weelaan badan aan u helo marka aan guda galno sharaxaadda magacyada Ilaahay. cashirkan waxaan uga hadli doonaa waxaan u bixinay qofka bini aadamka ah xiriirka uu la leeyahay xuska Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo Ilaahay baryadiisa. waayo ummadda Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam
وأمد للربو loo abuuray loo sameeyey inay noqoto ummadda dunida ummadihii ay soo maray oo dhan ummadda ugu sharafta badan ugu karaamada badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. sidaa darteed culimmadu waxay sheegeen axaadiis badanna ku soo aroortay in cibaadada asaasiyaadkeeda ama saldhigyadeedu ay ka mid tahay baryada ilaahay subxaanahu wa tacaala. adducaau mukhu lcibaada. waxay kaloo culimmadu sheegeen maqaamaadka ay leedahay cibaadadu kuwa ugu sarreeya inay ka mid yihiin baryada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo dhinacyo kala duwan ka eegay. dhinacyada ay ka eegeen waxaa ka mid ah qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka laga reebo ducada wax kasta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam looga baahdo nabiga la weydiinayey ilaahay baa qur-aan soo dejinayey. ilaahayna wuxuu oranayay waxaad siisaa jawaabtaas. yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilah wayasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adaa ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. meeshaas culimada waxay ku sheegeen marka inay jirto wax u dhaxeeya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ah oo la leeyahay dadka u sheeg ilaahayna uu qur-aankiisa ku soo dejinayo. laakiin marka ay timaaday bay yiraahdeen culimadu ilaahay baryadiisa waa laga saaray qul waxayna noqotay wax qofka iyo ilaahay si toos ah xiriir uga dhaxeeyo. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. culimadu marka waxay yiraahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala markii sida ilaahay loo baryo uu ka jawaabayay wuxuu dhahay waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaanii. marka ereyga cibaadii waa sharfid addoommadiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharfayo oo uu ku sifeynayo inay asaga addoommadiisa yihiin. wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala isticmaalay fa innii qariib ma uusan oranin addoommadeedu waa ii dhow yihiin. wuxuu yidhi addoommadeeda aniga u dhow. waxaa kaloo culimmadu ay aada uga hadleen qofku marka uu qalbigiisa waxaan ilaahay ahayn uu ka saaro oo ilaahay subxaana wa tacaala keligiis uu qalbigiisa geliyo markaas waaye marka uu dareemayo in ilaahay subxaana wa tacaala u soo dhowaaday oo asaga ilaahayna aysan cidina u dhexaynin. sidaa darteed waxyaabaha uu ilaahay subxaana wa tacaala ummadda nebi maxamed ku sharfay ku karaameeyey waxaa ka mid ah inay ilaahay subxaana wa tacaala ay iyagu toos u baryaan ilaahayna uu u qiray inay addoommadiisii yihiin ayna u soo dhowaadeen. ummadii reer bani israa'iil oo ka mid ahayd ummadihii ilaahay uu marka hore karaameeyey oo u fadiliyey wa annii fadaltukum cala alcaalamiin wa aataakum maa lam yu'ti axadan min alcaalamiin. markay ilaahay u baahdaan waxay oran jireen qaala udcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa hiya. sidaasoo kale ummaddii nebi ciise ilaa xawaariyiintii naxnu ansaarullaahi dhahayay markay ilaahay u baahdaan inay baryaan nabi ciise u imaanayeen waxay oranayeen hal yastatiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min asamaa. markaasaa nabi ciisena ilaahay u baryay oo ducadii uu ilaahay u weydiinayay. laakiin ummadda nebi maxamed meeshaan dhexe waa laga saaray. qof kasta oo muslima oo ummadda nebi maxamed ka tirsan wuxuu helay inuu ilaahay toos asaga wax u weydiisan karo. wasalu llaha min fadli udcuunii astajib lakum. sidaa darteed ducadu waa shay loo furay inaad adiga awood u yeelato inaad ilaahay subxaana wa tacaala si toosa u baryi karto si toosa u tuugi karto ilaahayna isla markiiba uu ku siinayo jawaab. walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan ducada markaad ilaahay ka barido oo wax weydiisato saddex shay unbaad helaysaa midkood. marka koowaad inuu ilaahay ducadii wixii aad weydiisatay wax ka khayr badan kuugu bedelo, ama haddii ilaahay sida uu koonka iyo sunanta dunida uu u aasaasay oo qadihiisu ku dhacay haddii ay waafaqsan tahay ducadaasna in lagu siiyo. haddii kalena in deganaasho xasilooni maskaxdaada iyo qalbigaaga aad ducada laftigeeda aad ka hesho. laakiin waxay yidhaahdeen qofka waxaa laga rabaa markuu ilaahay baryayo ilaahay uma baryootamaysid ama luqadaadu inaysan noqonin baa la rabaa sidii inaad ilaahay wargelinayso ama sidii ilaahay inaad duruuftaada u sheegayso. waxaa la rabaa inaad u ekaato luqad baryootan ah oo isjilcin ah oo isdullayn ah oo ogolaasho ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala asaga uu wax ku siin doono. sidaa darteed waa inaad ilaahay ku baridaa magacyadiisa kala duwan hadba midka aad u baahan tahay inaad ilaahay uga barido oo ay ka mid tahay alxayu alqayuum duljalaali waalikraam allah. yacni magac kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay inaad ku barido. sidaa darteed magaca alismullaahi alacdam adigaa waxaa lagaa rabaa inaad alxayu alqayuum isticmaasho, adigaa lagaa rabaa duljalaali waalikraam inaad isticmaasho. had walba magaca aad u baahan tahay ilaahay subxaana wa tacaala inaad isleedahay kanuu kaaga ajiibayaa inaad ku ceshato. sidaa darteed qofka muslimka waxaa la rabaa markaad ilaahay baryayso oo aad ilaahay isu dhiibayso inaad ka hormariso xusuustaada inuu ilaahay qalbigiisa uu soo galo.
sida ilaahay lagu xusaa jirkaaga oo dhanba ilaahay inuu xusaa laga rabaa. Indhuhu waxay wax ku xusaan inay ilmeeyaan oo ilaahay dartiisa ay u ilmeeyaan. Dhaguhu waxay wax ku xusaan inay wax dhageystaan oo wax khayr la ay dhageystaan. Carabku wuxuu ilaahay ku xusaa inuu ilaahay u mahadnaqo, ilaahay inuu ammaano. Gacmahaaga waxay ilaahay ku xusaayaan inaad wax ku dhiibto, inaad wax ku bixiso oo wax khayr ay gacmahaagu sameeyaan. Lugahaaguna waa inay u dadaalaan, cibaadada ku dadaalaan, khayr ku dadaalaan, ummadda anfaceeda ku dadaalaan. Qalbigaagana waa inay laba shay gashaa, cabsida ilaahay iyo rajada aad ilaahay ka qabto. oo taasoo ka dhalanaysa marka adiga oo dhan inaad noqoto qof xus ilaahay oo mar walba ku nool. Quraanka marka u fiirsato 4 shay oo waxa jirta oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku tilmaamay akbar wax weyn inay yihiin. waxaa ka mid ah dikriga ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka daa'imaya alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. ilaahay subxaanahu wa ta'aala dikriga wuxuu siiyay 4 shay oo u gaar ah. mid waxa weeye inay joogtayn leedahay alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. wuxuu kaloo ilaahay siiyay dikrigu inuu yahay xuska ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay tahay wax la weyneeyo wala dikrullahi akbar. wuxuu kaloo ilaahay siiyay markaad adiga ilaahay xasuusato asagan inuu ku xasuusanayo oo ku leeyahay xasuuso annagu ku xasuusanayo tadkuruni adkurkum. waxay kaloo leedahay inaad badiso inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala kugu amaanay wadhaakiriina allaha kathiran wadhaakirat. waxay kaloo culimadu yiraahdaan ilaahay 4 shayba wuxuu ku magacaabay inay yihiin 4 shay oo waaweyn. mid waxa weeye jannada انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مد لبعض وحوين إلهي يكون شيء وحواي عذابته والعياذ بالله ولا عذاب الآخرة أكبر. مد صدح هذا إلهي وكل شيء وحوين نيه وحواي إنه إلهي رالك عن نقضه رنتينا وحوين إلهي رالك عن نقضه ورضوان من الله أكبر. شيء أفراد إلهي وحوين كل شيء وحواي حسك إلهي ولا ذكر الله أكبر. سيدا درتد إلهي سبحانه وتعالى وجعليه قفك بن آدم كأي وأبوري إن أفكيس إي حسوستيس مر والباقي كجران. سيدا درتد ددك علماءه إلهي كحران وإلهي هذا عارفين تو إلهي آدو يقانو قاركود حلقة سو وريا هذا الآدي آدو قيمة بدن آدو عجيب بدن لكن مركه رعاد كان حيسو من علماء أسكمدها وحلويري أديك إلهي محوير إلهي أنيقا ما بحسوسته. marka hadaad maqasho ilaahay ma xasuusto waxa laga yaabaa inaad aad u naxdo. maxaa dhacay markii la yirina wuxuu yiri aniga ilaahay maba ilaababa. marka macnaheedu waxay tahay inaadan marka horeba xusuustaadu hadaysan ilaahay kaba bixin oo mar walba aad ilaahay ku xiran tahay mar walba aad ilaahay xasuusan tahay waxaad helaysaa jidkii wanaagsanaa oo aad magacyada ilaahayna qalbigaaga ugu dagi lahaayeen magacyada ilaahayna aad wax ku xusi lahayd oo aad ku wardin lahayd ilaahayna aad ku bari lahayd. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبربي وحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسونو قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مغا عيسو ووارسان دمانا الله وين ربي بوحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan wadnaa taxanaha aan uga hadli doono magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo aan sharaxaad faahfaahsan magacyada Ilaahay ka bixin doono. waxaan wadnaa inaan ka hormarino casharo aan u bixinay casharo horodhac ah si hadhow ay dhuuxid iyo faham iyo weelaan badan aan u helo marka aan guda galno sharaxaadda magacyada Ilaahay. cashirkan waxaan uga hadli doonaa waxaan u bixinay qofka bini aadamka ah xiriirka uu la leeyahay xuska Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo Ilaahay baryadiisa. waayo ummadda Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ummad la rabo loo abuuray loo sameeyay inay noqoto ummadda dunida ummadihii soo maray oo dhan ummadda ugu sharafta badan ugu karaamada badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. sidaa darteed culimmadu waxay sheegeen axaadiis badanna ku soo aroortay in cibaadada asaasiyaadkeeda ama saldhigyadeedu ay ka mid tahay baryada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. adducaau mukhu lcibaada. waxay kaloo culimmadu sheegeen maqaamaadka ay leedahay cibaadadu kuwa ugu sarreeya inay ka mid yihiin baryada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayagoo dhinacyo kala duwan ka eegay. dhinacyada ay ka eegeen waxaa ka mid ah qur-aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka laga reebo ducada wax kasta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam looga baahdo nabiga la weydiinayay Ilaahay baa qur-aan soo dejinayay. ilaahayna wuxuu oranayay waxaad siisaa jawaabtaas. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. meeshaas culimada waxay ku sheegeen marka inay jirto wax u dhaxeeya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ah oo la leeyahay dadka u sheeg ilaahayna uu qur-aankiisa ku soo dejinayo. laakiin marka ay timaaday bay yiraahdeen culimadu ilaahay baryadiisa waa laga saaray qul waxayna noqotay wax qofka iyo ilaahay si toos ah xiriir uga dhaxeeyo. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. culimadu markuu waxay yiraahdeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala markii sida ilaahay loo baryo uu ka jawaabayay wuxuu dhahay وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. marka ereyga cibaadi waa sharfid adoomadiisa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu sharfayo oo uu ku sifeeyay inay asaga adoomadiisa yihiin. wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu wa ta'ala isticmaalay fa innii qariib ma uusan oranin addoomadeedu waa ii dhow yihiin wuxuu yidhi addoomadeeda aniga u dhow. waxaa kaloo culimmadu ay aada uga hadleen qofku marka uu qalbigiisa waxaan ilaahay ahayn uu ka saaro oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala keligiis uu qalbigiisa geliyo markaas waaye marka uu dareemayo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala u soo dhowaaday oo asaga ilaahayna aysan cidina u dhexaynin. sidaa darteed waxyaabaha uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadda nabi maxamed ku sharfay ku karaameeyey waxaa ka mid ah inay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ayagu toos u baryaan ilaahayna uu u qiray inay addoommadiisa yihiin ayna u soo dhowaadeen. ummaddii reer bani israa'iil oo ka mid ahayd ummadihii ilaahay uu marka hore karaameeyey oo u fadiliyey wa annii fadaltukum cala alcaalamiin wa aataakum maa lam yu'ti axadan min alcaalamiin. markay ilaahay u baahdaan waxay oran jireen qaala udcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa hiya. sidaasoo kale ummaddii nabi ciise ilaa xawaariyiintii naxnu ansaarullaahi dhahayay marka ilaahay u baahdaan inay baryaan nabi ciise u imaanayeen waxay oranayeen hal yastatiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min as-samaa. markaasaa nabi ciisena ilaahay u baryay oo ducadii uu ilaahay u weydiinayay. laakiin ummadda nabi maxamed meeshaan dhexe waa laga saaray. qof kasta oo muslima oo ummadda nabi maxamed ka tirsan wuxuu helay inuu ilaahay toos asaga wax u weydiisan karo. was'alullaaha min fadli udcuunii astajib lakum. sidaa darteed ducadu waa shay loo furay inaad adiga awood u yeelato inaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala si toosa u baryi karto si toosa u tuugi karto ilaahayna isla markiiba uu ku siinayo jawaab. walidaalika culimmadu waxay yiraahdaan ducada markaad ilaahay ka barido oo wax weydiisato saddex shay unbaad helaysaa midkood. marka koowaad inuu ilaahay ducadii wixii aad weydiisatay wax ka khayr badan kuugu bedelo. ama haddii ilaahay sida uu koonka iyo sunanta dunida uu aasaasay oo qadihiisu ku dhacay haddii ay waafaqsan tahay ducadaasna in lagu siiyo. haddii kalena in deganaasho xasilooni maskaxdaada iyo qalbigaaga aad ducada laftigeeda aad ka hesho. laakiin waxay yiraahdeen qofka waxaa laga rabaa markuu ilaahay baryayo ilaahay uma baryootamaysid ama luqadaadu inaysan noqonin baa la rabaa sidii inaad ilaahay wargelinayso ama sidii ilaahay inaad duruuftaada u sheegayso. waxaa la rabaa inaad u ekaato luqad baryootan ah oo isjilcin ah oo isdullayn ah
oo ogolaasho ah inuu ilaahay subxaana watacaala asaga uu wax ku siin doono. sidaa darteed waa inaad ilaahay ku baridaa magacyadiisa kala duwan, hadba midka aad u baahan tahay inaad ilaahay uga barido, oo ay ka mid tahay alxayu alqayuum duljalaali waalikraam allah. yacni magac kastoo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay inaad ku barido. sidaa darteed magaca alismullaahi alacdam adigaa waxaa lagaa rabaa inaad alxayu alqayuum isticmaasho, adigaa lagaa rabaa duljalaali waalikraam inaad isticmaasho. had walba magaca aad u baahan tahay ilaahay subxaana watacaala inaad isleedahay kanuu kaaga ajiibayaa inaad ku ceshato. sidaa darteed qofka muslimka waxaa la rabaa markaad ilaahay baryayso oo aad ilaahay isu dhiibayso inaad ka hormariso xusuustaadu inuu ilaahay qalbigiisa uu soo galo. sida ilaahay lagu xusaa, jirkaaga oo dhan ba ilaahay inuu xusaa laga rabaa. indhuhu waxay wax ku xusaan inay ilmeeyaan oo ilaahay dartiisa ay u ilmeeyaan. dhaguhu waxay wax ku xusaan inay wax dhegaystaan oo wax khayr la ay dhegaystaan. carabku wuxuu ilaahay ku xusaa inuu ilaahay u mahadnaqo, ilaahay inuu ammaano. gacmahaaga waxay ilaahay ku xusaayaan inaad wax ku dhiibto, inaad wax ku bixiso oo wax khayr ay gacmahaagu sameeyaan. lugahaaguna waa inay u dadaalaan, cibaadada ku dadaalaan, khayr ku dadaalaan, ummadda anfaceeda ku dadaalaan. qalbigaagana waa inay laba shay gashaa, cabsida ilaahay iyo rajada aad ilaahay ka qabto, oo taasoo ka dhalanaysa marka adiga oo dhan inaad noqoto qof xus ilaahay oo mar walba ku nool. qur-aanka markaa u fiirsato 4 shay oo waxaa jirta uu ilaahay subxaana watacaala ku tilmaamay akbar, wax weyn inay yihiin. waxaa ka mid ah dikriga ilaahay subxaana watacaala qofka daa'imaya, aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim. ilaahay subxaana watacaala dikriga wuxuu siiyey 4 shay oo u gaar ah. mid waxaa weeye inay joogtayn leedahay, aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim. wuxuu kaloo ilaahay siiyey dikrigu inuu yahay xuska ilaahay subxaana watacaala inay tahay wax la weyneeyo, waladikrullaahi akbar. wuxuu kaloo ilaahay siiyey markaad adiga ilaahay xasuusato asagan inuu ku xasuusanayo, uu ku leeyahay xasuuso annagoon ku xasuusanayo, tadkuruunii adkurkum. waxay kaloo leedahay inaad badiso inuu ilaahay subxaana watacaala kugu ammaanay, wadhaakiriina allaha kathiiran wadhaakiraat. waxay kaloo culimmadu yidhaahdaan ilaahay 4 shayba wuxuu ku magacaabay inay yihiin 4 shay oo waaweyn. mid waxaa weeye jannada, undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walaalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila. midda labaadoo wax weyn ilaahay ku sheegay waxaa waaye cadaabta, walciyaadu billaah, wala cadaabu alaakhirati akbar. midda saddexaadoo ilaahay uu ku sheegay wax weyn leeyihiin waxaa waaye inuu ilaahay raalli kaa noqdo. runtiina waa wax weyn inuu ilaahay raalli kaa noqdo, wa ridwaanun min allaahi akbar. shayga afraadoo ilaahay uu wax weyn ku sheegay waxaa waaye xuska ilaahay, waladikrullaahi akbar. sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala wuu jecel yahay qofka bini aadamka ee uu abuuray in afkiisa iyo xusuustiisu mar walba ay ku jiraan. sidaa darteed dadka culummadaha oo ilaahay ku xiran oo la yidhahdo caarifiinta oo ilaahay aad u yaqaano, qaarkood waxaa laga soo wariyaa hadal aad iyo aad u qiimo badan, aad u cajiib badan, laakiin marka hore aad ka naxayso. nin culummadaas ka mid ahaa waxaa lagu yidhi adiga ilaahay, wuxuu yidhi ilaahay aniga maba xasuusto. marka haddaad maqasho ilaahay ma xasuusto waxaa laga yaabaa inaad aad u naxdo. maxaa dhacay markii la yidhina wuxuu yidhi aniga ilaahay maba ilaababa. marka macnaheedu waxay tahay inaadan marka horeba xusuustaadu haddaysan ilaahay kaba bixin oo mar walba aad ilaahay ku xiran tahay, mar walba aad ilaahay xasuusan tahay, waxaad helaysaa jidkii wanaagsanaa oo aad magacyada ilaahayna qalbigaaga ugu degi lahaayeen, magacyada ilaahayna aad wax ku xusi lahayd oo aad ku wardin lahayd, ilaahayna aad ku bari lahayd. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله ربي وحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذا غيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسونو قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مغا عيسو ووارسان دمانا